dadweynaha ku dhaqan xaafadda Koosaar ee magaalada Burco ayaa maanta mudaharaad balaaran oo cabasho ka dhigay afaafka hore xarunta dowladda hoose degmada Burco. Mudaharaadkani balaaran oo ka qayb qaadanaya dadweynaha aad u tiro badan ayaa dadweynahaasi waxay eedeen balaaran dusha uga tuureen hay'adda NRC oo sheegeen inay musuqmaasuqday guriga naga dhisay xaafadaasi. Waxayna sidoo kale dadkani mudaharaadayay maamulka dowladda hoose degmada Burco ay ku eedeeyeen inay qayb ka yihiin musuqmaasuqna ay sheegeen inay ku kacday hay'adda NRC. Dadkani mudaharaadayay ayaa dhinaca kale gudoomiyaha xaafadda Koosaar ee magaalada Burco Maxamed Axmed Sheeri ku eedeeyay inuu qayb ka yahay dib u dhac balaaran oo ka muuqda xaafadaasi. waxaan deganay xaafadda Koosaar xaafadda nasiibkaygu wixii siiyay 100 guri waxa sidee hay'adda RRC waqtiga nasiib la iga qaaday gacantayda yar baan ku qaaday 3 sano iyo 2 sano iyo dhowr bilood baan imika sugayay maantana go'aan waxa la igu siiyay in la iga qaado xaafadda Koosaar qoys ka mid ah oo waqtiga nasiibka helin awaayo nasiibkiisa ku waayay la siiyo cadaaladana ma aha sharciga diinta islaamkana ma aha gudoomiyahaana la socda Maxamed Axmed Sheeri baa ka mas'uula waxa weeye hana laga qabto marka ugu horeysa gudoomiyahaana laga qabto mar labaadkana RRC hana laga qabto mar saddexaadka dawladdu hana soo jeesto marka yagii joogtay ayaa anaga nalaga dulqaado leeyahay Koosaar baa loo kala qaadaya kuwii hore waa laga qaadaya xaafado kale Koosaar loo dhisaya waxay noqotay cadaalad darro maayarka iyo gudoomiye ku xigeenka dawladda hoose iyo kuwii meeshayada gudoomiyaha intiiba waxay isku raacsan in laga qaado cadaaladna ma aha waa 80 ka guri waanu daba socodnaa waana la boobaya maatadii heshay baa laga qaadaya inta xaafadiisu haniyeysay waxaadana dab la dhex dhigara maaha waxa weeye aanu ka cabanayna muddo 2 sanadooda baanu guriyo mudkisaynay 2 sanadooda waanu u fadhinay sidaanu ugu fadhinay aanu u joognay aanu qofka waalan iyo qofka raqda iyo qof walba aanu lahayn ba RRC iyo in Axmed Sheeri iyo dawladda hoose ka shiri shad xaafadood baan waqtiga nasiibka ku galay aanu guriga ku helay afartii waay buu afartii baan min 20 aqal u dhisaya in anaga yagi helayna wuxuu idin dhisay ma ogolin inay dadka iyaga iyo maatadayada iyo waxa iyaga isku garaacaan oo isku dhuftaan ma ogolin annagu waxaan leenahay wixii ay meel mariyeen iyagu ay hore u siiyeen cid wax siiyeen haddaanay taa ahayn inay iyaga dhiigooda isku daadiyaan doori mayna waxaanu leenahay hay'adda iyo ninka madoowe wataabaha naga tagaan baanu leenahay oo hanooga daayaan dalka magaalada khalaaqalka oo hanooga daayaan oo ay xaafadda naga tagin baanu leenahay hadday ka dayn waayaan wixii ay ka helaan bay leeyihiin iyagana ka mas'uula wixii dhibaato kala kulanta dhinaca kale gudoomiyaha xaafadda Koosaar Maxamed Axmed Sheeri ayaa isna dhinaciisa eedeyntaasi iska difaacay wuxuuna sheegay in aan guud ahaanba haba yaraatee waxba ka jirin eedeyntaasi ay u soo jeediyeen dadkaasi mudaharaadayay si kastaba haatee waxa muddooyinka u dambeeyayba xaafadaha degan yihiin dadka danyarta ee magaalada Burco ka soo yeedhayay cabasho balaaran oo hay'adda NRC ku eedeynayaan inay ku kacdeen musuqmaasuq xarkaha goostay Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British Television caalamiga ee Royal Burco.